sidee lagu ogaadaa canuga in uu ama qofku in uu mental decline inuu ku socdo muxuu haayay haddii caruur tahay iyo haddii dad qaangaara tahay labadaba calaamaduhu waa isku mid inta badan lagu garto qofka waxa aad ku garanaysaa dhalinyarada kale qofka waxa uu hal mar bedelaa habdhaqankiisii ama behaviorkiisii ayuu bedelaa waxa uu bedelaa qofku qaabkii uu cuntada u cuni jiray iyo xilliyadii uu cuni jiray iyo wixii uu cuni jiray tusaale ahaan haddii uu ay caadi ahayd inuu cunto yani hagaagsan oo nafaqo leh cuno markii hore imika way ku adkaanaysaa in cuntooyinka noocooda wanaagsan oo dhan buu ka odhanaya dooni maayo waxaa kaloo ka mid a qofku wuxuu ku raagaa hurdada sidoo kale qofku markuu seexda isiraado hurdada aada sariirtana hurda uma timaado markuu sariirta aado hurda u iman mayso markuu seexdo hurdo fiican heli maayo kac markuu israahdana way ku adkaanaysaa intaasiba waxa weeyaan cuntadii ama eating habitskiisii way isbedelaysaa iyaduna habdhaqankii isaga iyo bani aadamka kale ee ku hareereysan u dhexeeyey iyaduna way isbedelaysaa qaabku ula macaamili jiray asxaabtiisa waalidkiisa iyo dadka ay shaqadu ka dhaxayso iyaduna way isbedelaysaa waxaad ku arkaysaa calaamado ay ka mid tahay cadho fara badan walwal fara badan hadallo istaba marsan iyo wax la mida waana waxyaalaha ay tahay inaynu fahanno dhibaatadana inagu haya sababta aan u leeyahay dhibaata inagu haya waxa weeyaan ilaa oo uu qofku dee xaaladii u dambeysay marayo ma fahno taasina waxay caddayn u tahay in fahanka xanuunkan aynan haba yaraatee wax idea ka haysan tusaale ahaan waxaad arkaysaa wuxuu xanuunkani uu qeyb ka yahay burburka qoyska waxaad ku baraarigu uun hebel iyo heblaayo way isfureen waa laba shalay isguursaday ma ogid wax iyo xaalad caafimaad oo ay mareen waxa uun aad ku baraarigu hebelba hebel dilay waxa uun aad ku baraarigu hebel jeelka la geeyay waxa uun aad arki yani argagax joogtaa waxa uun aad arki argagax joogtaa taasina waxay keentaa in dee dad badan ay naga dhintaan dad badan ay isfuraan dad badan ay jeelasha naga aadaan soo sax maaha soo kama wanaagsanaan lahayn haddii aynu fahamno in aynu badbaadin kari lahayn qoysaskaa burburay soo kama fiicnayn oo ma wanaagsanayn inaynu caruurtaa jeelka aaday aynu badbaadino marka la eego xaddiga ama tirada aynu ku joogno meesha ka Soomaali ahaan iyo tirada jeeli nagaga jirtaa de wax isleh maaha waa wax غير العادية waa wax uu qof kasta ka naxayo marka la eego tirada dadka inagaga dhintay istila ama dhalinyarada istisha ama sabab la'aan inooga dhinta iyaduna waa tiro xadka ka baxsan waxaas oo dhan waxa uu aabaa fahanka habdhaqanka maskaxda bani aadamka haddii aynu in uun fahmi lahayn waxa qofka maskaxdiisa iska bedbedelaya ilaa qofna iskagama soo kaco ficil wahshi ah ku dhaqaaq maanta qofna kuma soo tooso qofna xiskiisa oo dhan qof aan daroogo isticmaalin oo wax dilin ma jirto qof maskaxdiisu bad qabto oo aan dhibaato qabin oo masiibo weyn ku talaabsada ma jiro waana baari karta qof xaaladiisu caadi tahay maan dooriye isticmaalin qoyskiisu u bad qabo hooyo iyo aabbo ka soo agtoosay ubad iyo caruur ka soo agtoosay dhibaato ma geysto qofka kaliya ee dhibaato geysta waxa weeyaan waa qof marka hore xaalad caafimaad oo xagga maskaxda ah
ay jirtay inaynu fahanno xanuunada ku dhaca dhimirku waa maskaxda xanuunada ku dhaca in aynu fahanno waa muhiim markay u yar tahay waxa la ilaahdaa stressku waa walwal qofka bani aadamka inuu walwalo waa wax caadi ah walwalkaasi markuu joogto noqdo ee uu kala go'i waayo waa xanuun sidee loo daweeyaa hadhow baan ka hadli doonaa and walwalkaasoo joogsan waaya waa wax aan caadi ahayn oo maskaxdii kusoo kordhay and waxa kale oo iyaduna xanuun noqota mashaakilkan inagu gadaaman ee qofka maalin walba ku dhacayo haddii dhibaato ay kugu dhacdo maskaxduna maara u weydo iyada lafteedu waa dhibaato and wax kasta oo qofka ku cusub waxay keentaa inuu qofku ka warwaro and oo uu nervous noqdo oo waa caadi limitkii loogu talagalay marka ay dhaafto waxa ayaa ay dhibaato keentaa aan idin xasuusiya maskaxdu waa xubinta ugu muhiimsan jirka bani aadamka stigmada dadkeenu cuqdad bay ka qabaan marka mental health la dhahaa wax waalan baa u soo baxa marka masaasa mise waxaa jira qofka asoo aanan markaas xanuun qabin iyo haddana mental health challenge yani la kulmi karaa oo culaysyaa jiri karaa ama dhaqaalaha noqoto ama stress kale ha noqdo sidii uu qofkaasi uu hawshaas wax uga qaban lahaa waa u iman doonaa laakiin waxaan rabaa marka hore stigmada sidaa u remove garayn lahayn stigmada ama dhaqanka Soomaalida oo ah dhaqan aad u qalafsan asalkiisana ka soo jeeda yani dhaqan baadiye ayuu ka soo jeeda ama geel dhaqato ama ari dhaqato ama lo dhaqato dhaqankeena qalafsan ee adag waxa ka buuxa ereyga uu ka xun yahay marka laga hadlayo xanuunka mental illnesska guud ahaan hal magac un baynu naqaanaa wax kale oo ka hooseeyana ma jiro maskaxdana waxaa ku dhaca dhowr boqol oo xanuun oo kala duwan hal magac un baynu naqaanaa waxaan rabaa marka inaan ka hadlo dhaqanka Soomaalidu bal isha uu ku eego xanuunkan anugu waxaan ku dhashay magaalo Hargeysa la yiraahdo waxa ku yaala jeel la yiraahdo jeel majnuun waxa lagu xareeyaa lagu soo ururiyaa dadka maskaxda wax ka qaba qaarkood waa la garaacaa qaarkood silsilada lagu xiraa dhaqanka Soomaalidu waxa ku hareeraysan oo degan magaalada Hargeysa ku dhawaad dad aan ka yareen 2 milyan meesha way daawadaan wayna arkaan tan iyo intii Ilaahay meesha ku abuuray qofna ma damqado hal qof uma damqado hatta waxa dhici jirtay in marka dadyowga meelaha maqaayadaha kule baa cuntooyin siin jiray mararka rabadaanta la gaaro kale meelihii way wada xidhan yihiin qaarkood cunto la'aan bay u dhintaan ila waa qof xiskiisi ka maqan yahay way dhintaan gaajo u dhintaan subax walba dad baa hormara meeshaasoo boqolaal sano jeelka ama iyagoo shaqo tagaya ama iskuulka soo rawaxay ama iyagoo gaari ku maraya ama iyagoo la garaacaya way arkaan iyadoo la dilaya way arkaan iyagoo silsiladaysan way arkaan iyagoo yani dhaawacu silsiladu u geysatay iyadoo qaarkood lugaha jareen baa jira bani aadam miyaan ku noolayn meesha waana ogoo magaalada Hargeysa maaha magaalo kasta oo Soomaaliyeed basaas dhaqanka Soomaalidu sida uu la dhaqmo qof xanuunsanaya iyadoo oo kooban waa sida hataa u fiirsato mahmaahooda Soomaalida wadaanin waashay nin mar waashay beelaan Soomaalidu nin mar waashay uu ladan yahay mooyaane uu bogsaday male yani uu yara ladnaaday mooyaane يعني يجا حتى كتاب كود بوق ما شفتونه بوكسن كرا سيدي أو أي يجو يهين كوا حنونكا كياناي واحد كلو يدونا شفتها اللي بعتها يعني استجماد أم بنك هذا يعني قفكو مرة تو حنون صدمه جورسن كرا هو إسلام يربى لويديو ليري يعني نمسح عرض شو
صدح عروري مد حنوصني واحد صدح عرورة يمد حنوصني صدح هذا عروري عادي كحنوصني يضم أي واحد مدة يعني وا دقن كالصومالي ذا سيدو كله تدكوي كعيان أن تقفضوا قف حنوصني هيست أما وحنا وجوا عن جهلية جهلي نجاح يستحنونك يكون دينته نجاح يستلا بضوا ودينته إسلامك ودين نحريس بقى بوحدة دينته إسلامك حيوان كيف نحريستها بني آدم من هذا الكود بس كده دينته سدا ساقون وما لها تدكو قف ولي بس صلاة يصون كيروينتي وأبيه كسو قاري قفنا إن أحل إسكسار الدين تيسا وي ده أنتن آذو برتها ويرت أما الله فقرت فاقدة فلان قيسة أن دقن كسومالي ذو ودقن كفقوق كوهية قفك لباتيسا مرك كي أينو هالكن نمدنا أن أنا وحنا قاني أن قد إيمان وقانا قد إيمان قرنيا إنتاس أو تدا أو حنون صدي يوسف بايلة شوقة وقاسي أو من مرك عن وذا شغين جنة أنت أي ريركو إنك أما قفك كحنون صنع يجيان جروب هم مالين تاسا وقدام بيسا دب أو تبا ديسا وكما تبا يبعتان isna uma arko qaarkood sanad 2 sano 3 sano 4 sano ayayna arag iyagoo ka xishoonaya inay arkaan ama la kulmaan halkii ay ahayd inay u naxariistaan oo inta ay dadkooda kale la kulmaan in ka badan ay qofkan la kulmaan oo ay gargaaraan oo ay caawiyaan oo waxa ka qaldan ay arkaan oo dadka la shaqeynaya ay saacidaan maalinta meesha la geeyaa ugu dambaysa sanad dabadeed dad ku noqoto waxay ahay qofkii inuu caafimaado wadile qofkii inuu maskaxdiisu dhibaataysan tahay uma baahna kaliya tadawo uma baahna wuxuu u baahan yahay waxyaalo fara badan oo ay kamid tahay qoyskiisii oo ay kamid tahay in aan umada laga dhex saarin haday iskuul ahayd haday meel lagu cunteeyo ahayd haday masaajid ahayd haday guur ahayd haday booqasho ahayd haday wax kasta oo qofka kale samaynayo inuu ka qatanaado ma laakiin dhaqanka Soomaalida darteed de waxa daliil u ah in saqaf waxaan xanuunsanay masaajidka kusoo tukadaba yaa mas'uul iska saaray intuu 3 qof oo xanuunsanay ma 2 qof oo walaalkii xanuunsanaya maalinta jimcaha soo kaxeeyo masaajidka keeno ويرتاي ده قف حلس كسارة كيني كرا لبا قف أو حنوصنا إياه أنتو قضية كبحيو أو $10 يساقنا وحوين بوته هيلين بوته وح إلهي أبا الله قد وانا ما أنت يوم القيامة هنا وح وقوين وقف بني آدم ونولي قف كلا آيات القرآن كاشف كويس باشيء قف وقف نوليا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا وحكى لي أنت يسقون نوليا ومضن شرنا وحلا جرات هذا وح وجويني وعافمات كقف كبني آدم كا دقن كين إسلام الصومالي ودقن وككم ودقن ك يعني قف كمسكح ديسة قف كحنوصنا يأتي العسل ما لينكست وح كديجية مسكح ديسو وفاميلي جيسة يعني كوميونيتي جانا محكر لجي إن استجماد أسكون ولا عضان السدي أسامين إسا كوميونيتي جا أو سامين أنت لك بكويا لتا حق وده عفمات كي برسبشن كي وحيابها هي أمسيهن أنا يسوق كوبي إن شاء الله تعالى وقت بدن قادنين قفك قرآن كمركو آخريو وحكو صارت كلمات كحزني وحكو صارت ما عرفتي قفك ما عرفتي هلع وخلق الإنسان ضعيفا مسائل بدن وهرتو سوسايتي أن كلنا لا عذر كدغان قرآنكو نورمال بو كدغا meelahan islaahay xataa istigmada community-geena sabab u baahan marar badan marka la fiiriyo sabab waxa uu ah
dadka mental health ku jira oo qofka anxiety markuu ku dhaco markii la leeyahay uu xanuunsan yahay oo maaragtay maxaan ku raaday qaabka loo approach gareynayo marka xogaani stigmada in community-ga basun la saaro oo la yiraahdo maaragtay xogaa community-ga bas faquuqaya qofkaasi waxaan aaminsanahay xogaa cadaalad ma aha systemka Mareykanka oo dhan baa ku saleysan qofka mental health ama anxiety ama depression hadduu ku dhaco which is natural oo qofku recovery ka sameyn karo in qofkaasi naftirkiisa xogaa si kale loo approach gareeyo oo system la geliyo marka stigmadu it's not only from the community it's from the system as well qofka akhriya mental health books qofka akhriya maaragtay maxaan ku radaa dad badan oo very simple mental health problem qabay oo intii prescriptions badan la siiyey laga sii waalay maaragtay maxaan ku radaa meel kala galayna way jiraan marka qofkii ku akhriya maaragtay indha cadaalad ah uu dareemi karaa stigmadu waa wax loo baahan yahay community-ga iyo systemka iyo dadka mental health ku jira dhammaantood inay qayb ka noqdaan inaysan maaragtay aysan create garaynin haddii community-ga aan usoo noqono waxaan isleeyahay stigmada kow waxaa ka ah waxaa jirta kelimad xikmad u dhahaysa al-insaanu caduwun lima jahil qofka wax uusan garanaynin xogaa wuu ka cararaa ama cadow uu ku yahay waxaan isleeyahay stigmada ama dhaleecaynta ama community-gu inaysan aad uga hadlin arrimahan waxaa qayb weyn ka ah wacyigelinta nagu yar arrimahan markay noqoto ana nin yani xataa islaamka wax ka yaqaana oo xataa wax jeediya markaan ku yiri kitaabkii koowaad mental health laga qoray qof muslim ah qoray wuxuu weligii ma maqal waxaan maqalnaa mental health oo maaragtay qolyahan Europeanka ay qoreen oo marka yani taas naftirkeeda waxay tusinaysaa inagii xogaa disconnection badan baa ka jira xagga ah taariikhdeena islaameed iyo sidoo quraanku mental health uga hadlayo narrative-kaasi badan aan uguma badno haddii narrative-kaasi aan xoojino khudbooyinkeena haddaan narrative-kaasi aan xoojino markaan muxaadarooyin jeedinayno haddaan ka hadlo taariikhda islaamka iyo culimada muslimiinta mental health ka hadlay waxaan isleeyahay stigmahaasi badan ee jira oo yaraan lahaa marka waxaan isleeyahay stigmaha waxaa lagu yareyn karaa haddaan su-aasha ka jawaabo in wacyigelin badan la sameeyo wacyigelin badan marka la sameynayana in mental health-ga looga hadlo qaab dheelitiran oo systemkana waxa uu ku saxsan yahay mental health-ga inaan ka qaadano anagoo ku apply gareynayna diinteena waxyaalo badan oo xogaa exaggeration oo jirana inaanu dib maaragtay u fiirino waxyaala exaggerationka waxaa ka mid tusaale ahaan depression kasta ma aha wax genetic ama asaad la socotaan qof waxaa laga yaabaa noloshiisa haddii wax ku timaado depression uu ku dhaco macnaheeda ma inuu ku dhashay macnaheeda ma noloshiisa inay daba jiitamis macnaheeda ma sticker ku dhagano weliga aan ka foqayn ay tahay which dadka qaarkood markay help ay raadiyaan it depends dadka u tagaan laakiin wax recovery uu ka samayn karo ayaa laga yaabaa maaragtay noloshiisa dhanba in la yiraahdo ay ku daba soconaysaa marka taas naftirkeeda waa extreme dhinacaasi ah marka anu waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala stigmada jirta ka community ahaan waxaan uga bixi karnaa wacyigelin iyo qur-aanka siduu uga hadlayo qofka bini'aadanka ah dabeecadiisa inay murugo ku imaan karto inuu jazac ku imaan karo inuu dhibaatooyinkaas maskaxiyana ku imaan karaan uuna ka gudbi karo recoveryna uu ka samayn karo insha allahu tacaala midda ah saamaynta ay nagu keentay inaanan arrimahan ka hadlin aad bay u weyn tahay saamaynta weyn ee nagu yeelatay waxaa weeye dad badan nala tukado laynka koowaad kuula jira ama laynka labaad laga yaabo aadan ka warhaynin maaragtay caafimaadkooda xagga maskaxda maalin dambe lagu sheegi karaa qofku uu dhintay oo la soo aasay oo maaragtay ama siyaabo kale isku dhibaateeyeen ama dad kale dhibaateeyeen badanaa community wuxuu baraarugaa un qofkan markuu ama say is dhibaateeyo ama markuu qof kale uu dhibaateeyo marka waxaan isleeyahay saamayntu aad bay u badan tahay waxa keli ah ee dadka naga xanuunsan meenta lagu daaweyn karna waxa weeyaan wacyigelin inaan ka warhayno insha allahu tacaala dadkaas waxaan kaloo ku darayaa waalidiinta iyo macallimiinta waxaa saaran dadka maaragtay educatorska guud ahaan in barnaamijkan ay si fiican uga hadlaan dadka ay mas-uulka ka yihiinna inay fiiriyaan isbedelada ku imaanayso hadda walaalku sheegayay calaamadooyin baa jira qof haddaad aragto marka hore bashaash ahaa oo masaajidka imaanayay oo iskuulka ku fiicnaa oo waalidka xiriir fiican la lahaa ama reerkiisa si fiican u dhaqanayay oo wixii oo dhan si maaragtay fudud wixiiba u gooyo isolation galay
ama lonely noqday oo dad telefoon ka qabanaynin waa message waa fariin marka anaga naftirkeena fariimahaas oo kale aan akhrino si dadkaas aan u caawino waa laga marmaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dhigo dad fahma mawduucan iyo muhiimadda uu leeyahay una naga dhigo kuwii maaragtay caawiya ciddii maaragtay xanuunkan la jiifta intii naga xanuunsan xanuunkan u xanuunsanna ilaahay subxaanahu kaliya waxaan rabaa inaan ku daro aniga oo weli dadka su'aalaha weydiinaya qadiyadan mental healthiga qofka xaaladiisa quraanka ka buuxa sidoo sheekha sheegay nabigana sallallahu alayhi wasallam markuu dib ku dhacaba quraanka u jawaabi jiray wala hada jiray fala'allaka baaqi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin ma isdilaysa hadii aysan diinta qaadanin يعني حزني النبي صلى الله عليه وسلم iyo murugada uu ka qabay quraanka lagu sheegay عام وحاجر الله عام الحزن سنة كمرugada ورسولك صلى الله عليه وسلم xaaskiisa Khadija dhimatay isla sanadkaasna waxa dhintay hadana adeerkiisa Abu Talib baa dhintay oo soo korsaday meel marka laba waxa la isugu geeyay laba geeri oo culculus baa timid waa mas'aladii ahayd grieving marka nabi sallallahu alayhi wasallam waa la yaqaan waxa la dhahaa aamul huzni marka waxaan rabay inaan ku daro istigmadaas qofka hadii uu mental health issues ku dhaco oo xanuunsado macnaheeda ma ahan qof xun inuu yahay ma xuma qofka dadka ugu fiican bay ku dhici kartaa arintaas oo xanuunsan kara heer nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu gaaray mararka qaarkood xataa xadiis qaar tilmaamayaan inuu damcay inuu buur iska soo tuuro ayuu gaaray ilaahay baa laakiin ilaa shanay marka waxa kale jirta iyadana oo qayb ka ah misalna hadda ilmaha autism-ka kale waalidiinteena qaar kamid ah way qarsadaan anuu garanay dad qarsada ilmahooda muddo dhan qarinay soo og canug inuu xanuunsan yahay qarinaya maxay yeelay stigmadaas canug waalan bay haysataa waaye yaa dhibaato ku ah marka muhiim waxa marka effectiga nagu wadaagto maxaa kamid ah canug 5 sano 6 sano 7 sano gaaray oo service-ku u baahnaa aan helin waxaan xasuustaa maamo wiilkeedii oo wax cabay oo soo wareeray oo guriga u yimid oo ay leedahay hooyo kaaliyo cashirkii bariga quraanka ku soo kaala quraanka akhriso dugsiga waa laga rabaa waa nin tal oo aan waxba akhrin karin intaas waxa weeye waxay diidinta in lagu caayo waxa dhow la yiraahdo canugii xumaa bay dhashay marka istigmada waa xaqiiqo weey arrin jirta weey waa arrin jirta community-geena dhibka haysta in la shame gareeyo la ceebeeyo qofka hadii ilma ka xanuunsiin haddaad moodaa inay banaanka u soo baxaan aniga saadarteed waalidiinta waan u sheegaa markaan fursad kastoon helo waxaan dhahaa wiil waxa ii joogo autistic ah I normalize inaan sheego inay normal tahay ilmahaygu inuu autistic yahay waa normal anima ka dhig Allah baa ka dhigay subhanahu wa ta'ala qon kartaa qaabka loo dawoobo tusaale ahaan qofka hadduu xanuunsan yahay siyaabaha loo daweeyo wixii medical iyo counseling iyo waa qaybna waa sidee diinta iskugu daaweeyaa islaamnimada iskugu daaweeyaa waa qayb kale qaybta ku xigta waxay tahay myths-ka iyo reality-ga markay noqoto in la isdaaweeyo hadda tusaale ahaan anaga waxa aad noogu badan jinku waa jira iyo sixirka waa xaqiiqo aan la inkiri karin laakiin waxa aad noogu badan qofkii xoogaa yara wareeraba in la dhaho jin buu qabaa aniga kulley waxaan markaan hadda aan arko meelaha quraan saarka meelo badan oo kamid ah cilooyin badan baa iyaga soo baxa mararka qaarkood waxaan isdhaa wareer ma iyaga qofka jinka ku akhriya waxaa arkaysaa boqolaal qof oo hal mar biyo lagu rusheynayo oo tubo loo haysto waxaasna kulley anuu shareecadu kuma arkin dariiqadii nabigana sallallahu alayhi wasallam kuma arkin waxaa arkaysaa qofka marka meel la geeyo in haween badan inta meel la geeyo kulligood jin ka wada qayliyo kulligood say u dhanyihiin ama ma arkin waxaasna wax aan arkay ma ahan ayadoo jinku u jiro xaqiiqo u yahay quraankan la isku daaweeyay la yiri iyo sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam adkaarna la baray haddana daahiradan wax walba inaan halka ka raacno iyo sixir iyo jin iyo cayn saddexdaas ayagoo xaqiiqo oo xaq oo jiraan marka maxaa myth ama reality sidees qofka uu isu daaweyn karaa xagga islaamnimada xagga medical counseling kana
وأوصل نقد دونا عبد الرحمن إيو يا كوسا نقد دونا إن شاء الله ما أنت وحكلو نابلن سنة لبا اختار أورنتي أد مهم نوجو أها ومدنا نجاح نوستي إلى عافية سعيدة أورنتي كونسل بدن سميسا وينو إيمان دون تاسشن كلو لو بلوت كدي بنقبض دونا برامج كانوا كله إيو دكتور خديجة علي ملجو وأيضا mental health addiction iyo counseling ka dhigta jaamacadda St Cloud University laakiin maanta noo imaan weyday sessionka ku xiga bay noo imaan doonaan waxaan rabaa insha Allah inaad bal barnaamijkaas ka hadashid iyo sidee qofku isu daaweyn karaa practical steps iyo waxyaabaha myth ama xansan ahayn oo xaqiiqo ah بسم الله الرحمن الرحيم مسألة طبعا mental health marka laga hadlo waa mowduuc caam ah weeye levelana way kala leeyihiin laakiin waxaan rabaa tusaale inaan usoo qaato culummada muslimiinta ee psychology-ga modern psychology-ga daraaseeya xaaditha ku dhacday nabiga sala allahu alay wasalam xilliguu noolaaba waxay ka soo dhex saareen 3 tallaabo oo qofka mentally maaragtay caawin karta in dhibaatooyinku timaada oo maaragtay sidii la rabay oo la tafaaculay isagoo markaas maskaxiyan wax xanuun ah ku imaanin qisadu marka waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam wiilkiisa ibraahim markuu dhintay nabigu wuxuu jiray 62 meelahaas ayuu jiray ibraahimna wuu yaraa 18 bilood buu jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam aad buu u murugooday uu soo aasay saxaabadu markii waxay arkeen nabiga sallallahu alayhi wasallam indhiisu waa ilmeynayaan سأقول الله سبحانه إسلام كا وحكوسه دقي في الجزيرة العربية إسلام كور جاهلية وحين دد ولا القدر حكوشة كي لقن كسومال أذك كواسو يكسر درنا ينبه عرب وحي أهين أعراب أشد كفرا ونفاقا وآذو جلد وأهمارة أذك كلمات كذا حتى إنسان رحمة إيو كتن حتى كلمات الرحمة إيو شفقة إيو رأفة إيو وكلمات عصب والقرآن الكريم كاللغة العربية وكسو بيري ويان haddaad fiirisana luuqadda carabiga quraanka ayaa kor u qaaday oo ka dhigay luuqa insaaniya oo xadaariya ah walaa kor haddaad fiiriso quraanka kor arabtu luuqadooda waxay ahayd wax dulmi iyo isdil iyo xataa magacada xarbi iyo xusni iyo waxa maaragtay ku salaysnaayeen almuhim nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ibraahim u dhintay wuu ooyey saxaabadu markay weydiiyeen xidhiya rasuulullah ooyisa adii rasuulka ilaahay baa tahay saddex shay buu markaa saddex jawaab uu bixiyay wuxuu yiri inna al-ayna la tadma ishu waa ilmeynaysaa waa midda culimada muslimiinta ee psychology darsay dhahayn waa qofka physical manifestation uu ku dhici karo qofka hadduu murugaysan yahay internally ama gudaha way ka muuqan kartaa waana okay qofku way ka muuqan kartaa uu ooyi kara wax dhiba ma laha wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam inna al-ayna la tadma taas marka nabiga muusan isku adkeyn muusan iscilkaan biin bas ilintu waa raxmo ilaahay ka timaaday wuu ilmeeyey wax dhiba ma laha taas culamarku waxay dhahaan qofku marka ay dhibaato ku timaado ama cadaadisaan oo kale ah way ka muuqan kartaa diiniyana wax dhiba ma laha taas marka waa physical component-iga weeyaan nabiga wuxuu yidhi wa ina alqalba laa yaxzan qalbiguna wuu murugoon taasina waa midda emotionska qofku inuu sadness uu dareemi karo hadday dhibaato ku timaado taasina waa lamid qofku murugo uu dareemi karaa laakiin midda ugu muhiimsan oo aan isleeyahay dadku badanaa way ku fail garoobaan waxa weeyaan waa cognitive process oo macnaheedu tahay how do you process dhibaatada kugu timaaday do you blame yourself waxaan waay anigu dhacaysa tan I don't deserve this waa hebel ugu dhici weyday waa aniga ugu dhacday waa ilaahay aniga ma aragtay punish gareynaya waa madaakhisha shaytaanka weeyaan لكن قفك هدو دهو ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وحا كلي أن لنا أنه مرغيسان وحين نقول إسا وحا إلهي الرالي قلني معنا ذو حويا إن أتكو سبرت قدرت إلهي أو سي كوغنتيفلي أدري إن يتهاي امتحان إلهي نأجر وكاسين دون آخره مركب مسكحيا تاسويا يعني منه فيزيكال كومبوننت قفك إنه أو يكرو ويكم مغنكرتو منه سادنس كقفك دريمي ايموشنز midna waa cognitive ko qofka inuu dareemo waxa ku yimaaday oo dhib ah ama murugo ama geeri ah oo dadu jecel yahay inay tahay qadar ilaahay subhanahu wa ta'ala oo diintu markaas waxay la bartay
inaan qadarta ilaahay ku sabrno inaan ogaano adduunkan inta lagu noolaanay inay yar tahay in qofku uu barto masaa'ibta iyo waxa ku imaanay inay tahay wax qoran inay tahay inuu qofku markasta uu dareemo ducada inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun intaasoo dhan waa manifestations waa kelimaad qofka muslimka uu ka cabirayo in waxyaalahan ku dhacay ay tahay qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala aysan marnaba ahayn wax ma aragtay isaga si gooni ah lagu baanish garaynayo nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada taasuu baray wuxuu baray haddii dhib kuu timaado ogow qadar ilaahay kuu qorna inay tahay diintaada sii hayso horey u soco laakiin dhibka jira waxaa weeyaan society-ga aan ku noolnahay hadda society qadar iyo iimaan iyo aaminsan ma aha waa society waxaa weeye aaminsan qofku hadduu xoolo leeyahay lacag leeyahay wax dhiba kuma imaanayso haddii qofku ma aragtay dhibaato ku timaadana waxaa la dhihi qofkan muxuu dhib u sameeyey qofkii waa marka la blame garaynayaa marka self blamingkaasi qofka ku dhacaysa ayaa keenaysa in qofkii depression uu galo in anxietygiisu ay sii badato inuu noqdo qof isaga confidencega dhumiya taasi marka waxay keenaysaa hadhow qofkaasi murugadu inay la sii dheeraato bal bilowgaba hadduu qaadan lahaa approachkii nabiga sal alla alay wasalam oo ahayd waxa waa qadar ilaahay weeye it's not my control uu maaragtay uu ilaahay subxaana watacaala isku xidho cognitive ahaan wax badan ama psychological ahaan wax badan baa maaragtay u nabadgeli lahaa waxaadna fiirisaan dhibaatooyinka qofka marka ku timaado islaamka wuxuuna siiyey platform iyo wax badan oo maskaxiyan maskaxdeena ilaalin kara oo cudurro badan ka ilaalin kara laakiin ma dareensanin nin soo islaama maalin loo sheekaysanin wuxuu yidhi ma arkin buu dhahay qofka markuu dhinto ama qof maaragtay uu jecel yahay hadduu dhinto ma arkin buu dhahay diin ka fiican islaamka oo qofkaasi qalbigiisa sakiina iyo طمأنينة iyo rajo gelinaysa yani macnaha waxa weeyaan diinteena islaamku markii qofku dhibaatooyin ay ku timaado waxay siisay ma aragtay asaaliib badan iyo qaabab badan oo qofkaas maskaxiyan uu isku ilaalin karo caafimaadkeeda isagana ma aragtay diinta ugu sugnaan karo marka midda ku saabsan ah haddii waxa uu yahay ma aragtay qofka dhibaatooyin ku imaanaysa hadda tusaale ahaan dhallinyaradeenna waxaa aad looga hadlaa depressionka midaan ahayn wax ma aragtay uu ku dhashay ama genetic aan ahayn laakiin dhibaatooyin ku timaaday ah waxaa sidee dadka marka dhallinyaradeenna aan u barnaa in dhibaatooyin ku imaanaysa haddii familka challenge uu ka haysto haddii iskuulka ay tahay haddii ma aragtay dhibaato kale ay tahay sababta ugu weyn ama qaabka ugu weyn caruurteena mentally aan u ilaalin karno saysan collapse ugu dhicin waxa weeyaan inaan barno fiqhu lmasaa'ibi fi lqur'aan inaan barno qofka haddii musiibo ku timaado ama haddii dhibaato ku timaado siduu qur-aanku u approach garaynayo laakiin dhallinyaradeenna iimaanka iyo caqiidada iyo yaqiintu aad looma baro aadna ma aragtay maxaan ku radaaye uma fahansano waxa kaliya ay fiiriyaan markay dhibaato ku timaado waxa weeye society si uga falceliyaan marar badanna dhibaatooyinka timaado society si uga falceliyaan iyada ayaa keenta qofka dhibaatada ku dhacday inuu mawru si xanuunsado kama dabciyaan saad la socotaan oo society ku salaysan on very materialistic ah iimaanka iyo yaqiinta iyo waxaas oo dhan ma aragtay ay ku yartahay marka waxaan ku soo koobi lahaa yani siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam maraaxil badan buu soo maray marxalo farxadeed marxalo murugeed marxalooyinkaas oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka falceliyay waxaana jirta ma aragtay tusaalooyin fiican oo aan kaga dayan karno aabbo tusaale ahaan caruurtiisii ma aragtay xanuunsan yihiin ama ay dhimatay hadduu nabiga ku noqdo siiradiisi wuxuu helayaa wax badanoo murugadiisa yareeya oo ku arki karo nabiga waxaa la mid qof ma aragtay reerkiisa inuu si fiican u rays gareeyo wuxuu ku noqon karaa nabiga wuxuu arki karaa tusaalooyin fiican saas daraadeed ilaahay wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana nabiga sal alla alay wasallam waxaa idinka sugnaaday tusaale fiican laakiin annaga sunnadeennii nabiga uu ka tegey maxaa kusoo koobnay wax yar sunnada mental healthiga nabiga si fiican uma naqaano manaan dersin way taallaa laakiin manaan dersin sunnada nabiga markay noqotay bulshada iyo sida loo hago manaan dersin marka wax badan baa weli islaamka nooga maqan oo u baahan inaan dib u falanqayno insha allahu tacala jazaakum allah khayr masalada ruqyada waa masalo dheer weeyaan marka insha allahu tacaala mar kalaan ka hadli doona insha allah